dadku marka su'aal is weydiinay waxa la isleeyahay baasha siba u yartahay hilibka kale ma karin kartaa iyo badarka iyo cuntada adag absolutely hilibka oo kale waxa weey neefka dhan waxa la 30 daqiiqo way ku qaadanaysaa in maaragtay neefka dhan uu karsamo yani meesha ay heatkeedu uu gaarsan tamarteedu energy-geedu marka la isku dhufto waxay noqonaysaa $7 iyo wax yar bisha dhan reerku inuu maaragtay cuntadooda ku karsadaan reerka culus isla markaasna dabka marka reerka culus wuxuu ku karsan karaa $7 $8 ayuu cuntadiisii maaragtay ku karsanaya waxa laga maarmayaa $40 $30 in maaragtay qarasha laga durdur shooladaha waxa ay samaysay qalabkan shooladan cusub oo runtii dalkeena ku ah innovation iyo halabuur cusub laakiin caalamka wadamada dhaqaalahoodu uu maaragtay yar yahay ay aad u isticmaalaan ama dadka uu dhaqaalaha soo galay uu yar yahay low income-ka sidaa darteed waxaan ugu talagalay in Soomaaliya oo dadkeedu maaragtay ay u badan yihiin dhaqaalahoodu iska yar yahay in looga faa'iideeyo oo laga gudbo tamartii qaaliga ahayd maaragtay qarashka badan ku baxayay isla markaasna laga digtoonaado deegaanka iyo dhirtii la jarayay marka qalabkan sidaas weey marka hadda waxaan u jeednaa bahashan cuntada lagu kariyo marka waxay ku shaqeysaa qaab nooceed u shaqeysaa okay bahashan waa shoolad waxay ku shaqeynaysaa oil ama olyada gawaarida laga bedelo olyadaas ayaa refined laga dhigay oo dib loo maaragtay hagaajinayaa oo inta warshad la geliyo dib loo soo hagaajinayaa ayadii oo nadiif ah ayaa maaragtay loo isticmaalayaa tamar ahaan in halkan waxa lagu shubayaa jeegan deetana halkaas ayay ka soconaysaa ilaa maaragtay dabku uu halkaa maaragtay ka dhasho waxa weeye waa very efficient wana affordable oo cid walba ayaa awoodi kan maxaa lagu shubayaa meeshaan lagu shubayaa oilka ayaa dabool bay leedahay daboolka laga qaadaya oilka lagu shubayaa denna oilki ayaa maaragtay soconaya halkaas ay maaragtay ay ka dhalanaysaa marka waxa la furnace oilka loo isticmaalayo caalamkana waa laga isticmaalaa xataa warshado ayaa maaragtay isticmaalo oo tamar ahaan u isticmaala marka mahaantii weynayd meeday oo gaaska lagu shuban jiray ma intaan yartaa mahaantu haan weyn ma lahan waa intan yar waxa weeye jeega yar baa maaragtay lagu shubayaa oilka olyada aan ku tuso furnace oilku waa tan midan yar weeye intan waa nus liter waxa laga yaabaa nus literkan reerka inay hayso inay laba jeer wax ku karsadaan intaas in laba jeer wax lagu karsado ayaa dhici karta ama waxa hadii liter baa reerka weyn oo culus ku filan maaragtay inay maalinta dhan cuntada ku karsadaan qiimaha marka dadku waxay isweydiinayaan qiimaha waa imisa bishii oo kale reerku isticmaali karo okay bishii oo kale hadaan dhahno hadda reerku waxay isticmaali karaan waa 30 bari bishu maalintina liter baa la isticmaalaya marka maalinta hadii liter la isticmaalo 30 bari waa 30 liter literkiina wuxuu ku fadhiyaa 25 senti marka la isku dhufto waxay noqonaysaa $7 iyo wax yar bisha dhan reerku inuu maaragtay cuntadooda ku karsadaan reerka culus isla markaasna dabka marka reerka culus wuxuu ku karsan karaa $7 $8 ayuu cuntadiisii maaragtay ku karsanaya waxa laga maarmayaa $40 $30 in maaragtay qarasha laga xagee marka olyada laga heliyo olyadan waxa laga helayaa kambaniga annaga ayaa maaragtay keenay ayadiyo refined ah oo dib loo soo hagaajiyay isla markaasna hadda waxa laga furay boosaas ayaa waxa laga furay meel lagu refine gareeyo olyada oo dib loogu soo hagaajinayo loogu soo nadiifinayo garawa ma leedahay meel noocaana oo laga heli karo xarunteena weyn bay imaanayaan oo gambool ka soo horjeeda halkaas oo maaragtay oilkii ama olyadii lagu kaydiyay oo kayd halkaas yaala halkaas ka gadan karaan qalabkiina halkaas uu yaala qalab badan baa hadda la soo saaray actually shirkad ma aha waa warshad weeye wax soo saar shuruudu marka maxay tahay markii qofka iibsanaya ama raba inuu isticmaalo warshadiina shuruudda koowaad maxay noqonaysaa shuruudda koowaad waxay noqonaysaa horta agabkan waa agab cusub wuxuu u baahan yahay dadkii iyo in la isbaro mar walba wax walba mar bay cusub yihiin oo maaragtay u baahan yihiin in bulshadii wacyigelin loo sameeyo oo la tuso faa'iidada uu leeyahay sidaa darteed bahalkan ay dadku isma yaqaanaan shardiga koowaad waxa weeye dadkii in wacyigelin qofkii in aanu tababarno oo tusno qaabka uu isticmaalayo dan qarashkiisu la baxaya meeshuu rabo la tagi karaa ilaa miyi baa lagu isticmaali karaa waa portable saasaa gacanta loogu qaadaya dadku marka su'aal is weydiinay waxa la isleeyahay baasha siba u yartahay hilibka kale ma karin kartaa iyo badarka iyo cuntada adag absolutely hilibka oo kale waxa weey neefka dhan waxa la 30 daqiiqo way ku qaadanaysaa in maaragtay neefka dhan uu karsamo yani meesha ay heatkeedu uu gaarsan tamarteedu energy-geedu waa very high energy efficient khatar maxay leedahay runtii wax khatar oo qarax ama maaragtay explosion ama wax kale oo looga baqayo ma jirto just waa oilkaas halkaas lagu shubayaa
tartiib ma garanaysaa hadhow markii lagu isticmaalo ayaa mara yar saa loo soo marinayaa sidii aan u nadiifsan jirnay bahalkeenna wixii yaroo residues oo ku haray wax kale oo khatar ah oo ay leedahay oo ma jirto maartaan khatar oo looga baqayo ma jirto